labada musharax ee beelweynta danwadaag ee gobolka saaxil u doorteen golaha deegaanka ee magaalada Berbera Cabdirashiid Nuur Wacays iyo Cabdilaahi Muuse Cabdi Cawaale oo isagana loo doortay golaha baarlamaanka ee Soomaaliland inuu iska sharaxo ayaa habeenkii xalay ahaa ku shaaciyay doorashadooda 2021 ay ka qayb gali doonaan. xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay Hotel Beach iyagoo ay ka soo qayb galeen salaadiinta beeshaasi cuqaal dhalinyaro iyo waliba waxgarad kale. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xubnaha ugu jiray baarlamaanka iyo golaha deegaanka beeshaasi ee iyagu xilka banayn doona. haddaan ahay xildhibaan weys cadde Cabdilaahi Muuse Cabdi kursiga aan fadhiyo waan ku soo dhaweynayaa gacan baan ku siinayaa waxaan idinkula talinayaa in loo wada shaqeeyo in la wada xoojiyo in loo wada codeeyo walaalayaalow haddaad diiwaangelinta ka seexataan xaqa doorashadana waa lumiseen xaqa doorashada si aydan u luminin waxaa la doonayaa in ay isdiiwaangelisaan waxa aanu garanay haddaanu nahay xildhibaanadii hore aad doorateen in aanay arrinku inaga noqonin tafaraaruq oo aanu bislayno oo aanu cidiina bedeli lahayd annagoo waxa weeye runtii dimuqraadiyada raacayna waxaa jira dad fara badan oo nala mid ahaa oo xildhibaana ahaa oo maanta iyagoo ama 8 sano joogay ama baarlamaanka waqti ka badan joogay raba inay dib ugu noqdaan oo haddana dadkii la hor yimaadaan inay iyagu dib ugu noqdaan. murashaxiin badan baa timi shirar badan baa la galay waxa markii ugu dambeysay finalkii lagu soo gabagabeeyay Cabdilaahi Muuse Cabdi Cawaale oo golaha wakiilada ah sidoo Axmed idin sheegay iyo Cabdirashiid Nuur Wacays Bulaale oo ah xildhibaanka labadeedii xildhibaan bedelaya inagoo u wada dhan inaynu runtii waxa weeye halkii buuxino oo aynu waxa weeye kaalintii aynu markii hore galay intii doorashada nala gashay ee ololaha nala gashay ee diiwaangelinta nala gashay hawshii iyo mid la mid ah inoo taala labada xildhibaan shaacintooda waxaanu leenahay Allah maxaan ku leeyahay haydin la qabto oo maxaan ku leeyahay Allah haydin maamuso waan idinku soo dhaweynaynaa waana idin garab taaganahay. intaasi kadibna Suldaan Cali Sleban iyo maayirka degmada Madheera Master Buraale iyo dhalinyaro isugu jiray rag iyo haween ayaa ballan qaaday in ay xoogooga iyo tamartooda isugu geyn doonaan sidii ay u soo saari lahaayeen labadaasi xildhibaan. waxaanu caawa halkan ku shaacinaynaa oo ummadayada gudaha dabadba gaarsiinaynaa labada xildhibaan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Master Cabdilaahi Muuse Cabdi oo golaha wakiilada aanu cumaamadnay iyo Master Rashiid Nuur Wacays Bulaale oo aanu cumaamadnay golaha deegaanka sidee u yeesheen ay go'aamiyeen midnimadeena iyo sharafteena iyo wanaageena iyo walaaltinimadeena waxaanba ka qiimo badan gacmahaynu saysanayna. maanta farxad gaar ah ii tahay aniga waayo Cabdirashiid muddo badan baan saaxiib ahayn ilaa jaamacadii waxaan xasuustaa Cabdirashiid magac halkan uu ka balaaran yahay laakiin aan dareemayo inuu yahay nin isku xidhi kara bulshada halkan joogta gudaha iyo dibaddaba. waxa la inooga baahan yahay inaynu taageerno oo si buuxda u taageerno oo garab istaagno oo wada shaqaynta iyo wax kasta inooga baahan yahay la garab istaagno. xildhibaanada cusub waan soo dhaweynayna inamada aynu si qurux badan u soo saaro codkeena aynu ka rumayno. waxaanu maanta la diyaar u nahay xildhibaanada sidii aanu kuwii hore u soo saarnay inaanu kuwana ula shaqayno waanaanu ku ducaynaynaa ilaahayna waa weydiisanayna. musharaxiinta halkan loo kala doortay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdilaahi Muuse Cabdi iyo Rashiid Nuur Wacays Bulaale ayaa halkan ku soo dhaweynayaa. waxaan leeyahay maanta waxaad tihiin waxa ka timaadeen beelba ka timaadeen laakiin maanta waxaad tihiin heer qaran iyo heer degmo ayaa tihiin xildhibaanadaas uu reer ku gartay oo ay beeshu garatay. waxaanu doonaynaa gudo iyo dibadba in laga taageero. mas'uuliyadda imka waxay saaran tahay dadweynaheena beeshan Danwadaag inaga la inaga rabo inaan soo saarno shaqayno hawl badan ka qaban. ugu dambayna musharaxa Cabdirashiid Nuur Wacays iyo musharax Cabdilaahi Muuse Cabdi Cawaale ayaa si weyn ugu mahadnaqay
madaxda iyo cuqaasha kala duwan ee beeshaasi sidoo kalena waxa ay ballan qaadeen in xilka loo dooran doono ay sida ay tahay uga soo bixi doonaan. waxaan jecelahay anigu inaan arrimaha bulshada ka shaqeeyo oo aan noqdo social worker waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo arrimaha deegaanka waxbarashada iyo caafimaadka insha Allah tacaala haddii aan ku soo baxno kursigaad maanta aad nooc maamadaysaan aan ku soconno waxa weeyaan rag uu tartamaa waanu ficiltamaa laakiin haddii la tartamo in la kala tagay maaha raggii aan tolka ahayn aan meeshan soo wada doonanay kursigan nasiibku noo kala sadburiyayna waxaan leeyahay saaxiibayaal nala shaqeeyo ku soo dhawaada saaxadda waxa ii garateen inaan noqdo murashax u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland waa karaamo way karaamaysan way sharfteen ilaahay idin sharfo ilaahay idin karaameeyo waxa anigana igu waajiba karaamada iyo sharafta inaan ilaaliyo hayo ay ugu faantaanana waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaynu guuleysano oo inuu insha Allah halka aynu socono aynu gaadhno وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد بولشة تي في مقالة بربراء.